intii aan ku sugnaa magaalada Kuala Lumpur waxaan xafiiskooda ku booqday shirkadda QETC oo iyadu ka shaqeysa dhanka waxbarashada isla markaana kamid ah shirkadaha lagu yaqaan dhanka waxbarashada ee wadanka Malaysia. Mr. Said ayaa garabkayga fadhiya oo ah madaxa marketingka iyo mas'uuliyiinta shirkaddan QETC. Said, bal waxaad iga warantaa horta waxbarashada Malaysia si guud maxaynu ka sheegi karnaa? أحمد سودو ولا أدبل ما سنتين هذا صوب وقتي وحبرشة ماليزيا وحنون كنا ماليزيا وودمada ugu wanaagsan ee loo tago waxbarashada especially ardayda ajaanibka ay u tagaan ilaa muddo hore ay u imanayeen waa wadan af Ingiriis looga hadlo waa wadan Islaama waana wadan ay fudud tahay dadka Soomaalidu inay yimaadaan waxaan u maleynayaa inuu yahay wadamada ugu fudud ee ardayda Soomaalidu ay timaado markaas bal waxaad iga warantaa idinku ka shirkad ahaan maxaad ardayda Soomaalida ee tusaale ahaan dhulkii joogto oo kale aad la qabataan ama aad u qabataan waxa ugu weyn ardayda Soomaalida aan ka caawino waxa weeye la talin iyo inaan siino warbixin sugan sababtoo ah waxa jira jaamacado badan iyo institutiono badan oo wadankan ku yaala marka ardaydu waxay u baahan yihiin inay helaan xog dhameystiran si ay go'aan u gaaraan actually ardayda iyo waalidiintuba marka waxa ugu weyn aan qabanaa waxa weeye inaan kala talino ardayga kuliyadda uu baranayo dad badan baa waxay u baahan yihiin la talin intaysan dooranba jaamacadaba marka la talintaas iyo kadib marka inaan u harayno jaamacaddii ku habboonay isaga ma garanaysa marka haday noqoto dhaqaale ahaan iyo programkiisa iyo meesha ay ku taala intaba ardayga anfacaysa baan marka u xaraynaa kadibna imaanshiga ardayga fiisihiisa deegaankiisa markuu yimaado kadib xataa la socoshadiisii xafiiskayga marka shaqooyinkaas u qabtaa marka timaado waxbarashada ardayda si guud waa maxay dhibaatooyinka ay wajahaan ardayda Soomaalida ee wadankan Malaysia waxbarashada soo doonta waxa ugu weyn waxa weeye af Ingiriisiga inta badan dalkeena hadda u bay xogaa maartay soo wanaagsanaaneysay laakiin bariga hore kale af Ingiriisigu wuxuu ahaa dhibaato jirtay oo halka markay yimaadaan inay jaamacadaha la qabsadaan xogaa wayra adkay sidoo kale mashaakilaadka jira waxa weeye ardaygu isagoo xog hayn buu iska imanaya wadankan waxa laga yaabaa inuu language center ama English ku yimaado kadibna uu doonayo marka inuu jaamacad sii galo sharci waxa halkan ka jira ardaygu hadduu English ku yimaado language center inuu markaa ama Englishkiisa dhamaysto uu wadanka ka baxo taasina xogaa waxay keentay ma garanaysaa ticket kale iyo kharash kale xogaa caqabadahaas baa yara jira laakiin sida kale ay waxaan malaynayaa waa wadan ay Soomaalidu si fudud ula qabsan karto waxaan joognaa bartamaha magaalada Kuala Lumpur ardaydan oo kamid ah ardayda Soomaalida ee dalkan Malaysia wax ku barta Ismaaciil Maxamed iyo Cabdalla ayaa garabkayga taagan oo wax ka weydiin doona bal waxbarashada wadankan Malaysia aad kaga jirteen iyo QETC waxyaabihii ay idin ka caawisay ama idin la qabatay Ismaaciil haddaan ku horeeyo السلام عليكم magacaygu Ismaaciil Sheekh Cabdulqaadir arday waxa ahay jaamacadda USSI ka baxay faculty of computer science sanadkan arday qalin jabinaysa kamid ah waxaan u mahadcelinayaa wadanka Malaysia iyo dhalinyarta la yiraahdo QETC organization-kaas oo iga caawiyay isdiiwaangelintii iyo qaabka u imaan lahaa Malaysia way marka shirkadda QETC maxay la qabatay markay noqoto waxbarashada aad ku timaadeen wadankan Malaysia wallahi marka anagu iimaanayna waxay u ekeed in macquul ahayn oo kale in Malaysia la yimaado waaga si fiican looma aqoonin dad badan messenger inta ka soo qalin jabiyeen aad garanayso kan messenger marka QETC waxay naga caawisay qaabkee loo yimaadaa si loogu noolaadaa process-ka dhan bay naga caawisay fiisiyaasha baan u soo saarnay xagaana keentay oo soo dhaweysay waa hagaag way Maxamed haddaan adiga ku yimaado bal adiguna iga waran waxbarashada Malaysia iyo magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Umar waxaan ahay arday ka yimaaday Soomaaliya gaar ahaan Puntland marka waxay petroleum engineering sanadkii ugu dambeeyay ku jira last year hal semester bay ahayd marka wallahi Malaysia waa dal madkhana aad wanaagsan weeye oo runtii aad noo soo dhaweeyay aan dareemayna madkhana dalkeena ka maqnaa dalkeena caadi ah dadka noqon ma garatay sidoo kale QETC aad bay noo caawisay markii madkhana dalka ayaa noogu yimid oo naga soo kaxeeyeen oo keenay xaggan oo noo fududeeyay fiisaha iyo admissionka iyo pick-upka iyo wax dhan noo fududeeyay dalka markii kuwaan ku cusbeenoo de waxba kala garanayn iyaga madkhana dalka mar walba madkhana yaani kala baray ma garatay haddana waa aragtay ragga odayaashaas madkhana raggii noqdeen dalkii si fiican bay ula haystaan ma garatay marka oo de lawan way dhameeyay jaacada anagana hadda waxbay ma harin hal semester bay waa hagaag marka dhalinyarada kale Soomaalida ah haddii aan u wareejiyo microphone-ka Cabdalle dhalinyarada kale Soomaalida ah ee doonayay inay wadankan Malaysia wax ka bilaabaan oo kale maxaad kula talin lahayd والله waxa jirta xaqiiqooyin badan oo imka Malaysia ku noolaanshiyaheedu
waxaa jirta waxyaabo badan oo arday dhalinyarta Soomaalida guud ahaanba u sahlaysa inay halkan si fudud wax ugu noolaadaan hadday wax baranayaan wax bartaan even kuwa doonaya inay meesha ganacsiga iyo waxyaabo kale ka bilaabaan wadanku diin ahaan horta wadan muslina weeyaan oo dadku difference dareemi maayaan marka halkan timaado the same weeyaan culture ahaanna dadku dad aad u sii furfuran ma progressive-nimada tusaale ahaan the western oo kale intay dhex qaadin maaha aad inooga duwan oo kale almost dadka culture ahaan inoo aad inoogu dhow weeyaan xidhnaanshiyaheena sideenoo kale waxoogaa conservative ah bulshadu marka wallahi aanu Soomaalidaas aad baan ugula talinayaa wadankan historically-na imka dhalinyarta joogta ee Soomaalida waa aan waxa aaminsanahay waa wadamada ardayda Soomaalida joogta ay ugu successful santahay reedka dropout-ki ugu yar yahay waxa jirta yani si fudud buu qofku xitaa community fiican baa jira Soomaaliya oo isku xidhan oo ardaygu markuu yimaado halkan si fudud buu ula qabsan karaa Soomaalida kale carab badan baa joogto oo aynu isku culture dhownahay I think waa wadan aad u soo dhaweyn fiican